ninkii malaha gurigu galay qorigiisii aakaha meeshan ugu tiirsan buu soo qaatay. islaantii wuxuu yiri ninkan waa la soo tilmaamay waa inta ka socdaan wax yar waxa boqol talaabo camal bay guriga soo dhaqaaqay. islaantii ku yiri ninkan waa la soo tilmaamay inuu idilo waa ibaranay intuusa idilin waa inaan dilaa war allaha allamay war allah waaba ku dhigtay gurigii buu kala soo baxay qori kii yarka ahaa isagii ma haya kan yar ba gadaal soo fiiriyay mise islaantii odaygii baa de ma garanaysa waxay u jiraan waa dhowr boqol talaabo si daayo qorigii buu koogaraystay qorigana waa maqleen dabayshu xaggeeda u soo dhacaysay waana arkeen inuu xaggooda u soo ordayna waa arkeen waa carareen marka xabaduu ka daba riday waa ula fariistay waa shiish masaafadii wax ka toogan lahaana waa dhaaftay ilaahayna uma qorin inay wax ku dhacaan laakiin orod buu ku galay reeri labadoodu iyagoo ordaya. bismillah salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatuh kulanti wacan oo wanaagsan ummadda Soomaaliyeed idil ahaantiinba sikin kasta iyo saacad kasta idin tahay saliga nabiga subhanahu sallallahu alayhi wasallam ha hilmaamnina waqt salaada idin tahay soo tukada kadibna isu keenkeena waxaynu sheekadeenni baynu dhexda uga soo jirnay waxaynu mareysay gabadh iyo wiil ay xiix iyo maax isku noqdeen bimaana isjeclaadeen reer miina la yahay xaaladdu ay bariga dhexe tahay wiilkii uu waramay oo yirina hada aabaha ninkan xataa sumadda xoolihiina ku taala fiiri waa sumadii aabaha marka gabadhan reerkan ninkan gabadhan aabaheed waxaan rabaa inaan idin fahansiiyo wax kale gabadhan aabaheed meesha waa ku dhashay reerkan waa ka mid yahay because isaga hooyadiis baa ninkan lagu tuhmay inuu dilay bay waxay u ahayd eedo labaad iyo oo odu reerkan ay ahayd laakiin isaga laftigiisu isla reerka magaca guud way yihiin balse reerkoodu waa reer kale oo degan oo in la yaal aabihiisa wuxuu ahaa in la yaal wiilka kaliya u dhashay aabihiina mid cid kale ma dhalinba wiilkan bay u dhashay wiilkana waa kan halkan gabadha kaga tagay sida la moodayo oo markaas isagiina waa dhintay la yiri reertiisu ku dhex noolaayo reertiisu waxay soo sheegeen inuu dhintay reerkaas dambe kama yeelan walaal markaas sii dabagalayna ma jirin horta qaabkaas marka waxa lagu yiri wuxuu ku yiri bal hadaad aqli iyo dhug leedahay fiiri buu yiri sumadan xoolihiina ku taal aabaha reerkiisu waa ilma cawade bal ilma cawad xoolahooda sumada ku taal maxay tahay maxaa sumadan ku dhigay xooluhu waa xoolihii aabaha buu yiri anaga runtii ku sheegaynay sheekaduna waa u waramay hadda inaan ku soo celiyo ma rabe bilow ilaa dhamaad dhacwasi waana kii odaygii masiibada ah ila qof baan ku qoslay commentiga wuxuu yiri gabadhu waa mid doqona mar walba waa sheegaysaa qofkii wuxuu sheegaba hadda koor waatay gabadha sheegtay ma ogtay oo la sigay haddana waa ka ninkii baa laga sigay iyadana dan baa ku kalifayso hooyadeed weeye waxay wuxuu sheeganaysaa hooyadeed qof kale wuxuu qoray way la ogtay may lama ogeyn sheekada inaan ka hor dhac ma rabo laakiin lamay ogeyn oo si daacada baa ninkaasi uga dhintay iyadu wax eed ay idin kuma lahayn laakiin xoolaha uu qaatay maamadu waa la ogtay waxayna aamintay dee maadaama gabadhii uu ka tegey iyo iyadiiba ay joogaan meesha xoolahana ay iyagu lahaayeen oo ninkeeda dee wuxuu leeyahay iyadaa lahayd intuu cadow cuni lahaa cali ha beesaysto isagii iyo iyagii ha cunaan oo ilmahan ay u dhashay iyo dee ha ku noolaadaan maxaa ka galay haddii cabdijibaar iyo cabdikhaliij iyo cabdibahalki iyo qaataan dee waxay noqonaysaa ummad kale inay xoolihii qaataan marka isagu ha qaato waana nin belaa oo aftaana afmiishaara belaaya ka aftahansan ka dhalinyar kuwa ka qabqablaysan ka hadal badan ka dagaalyahansan si kasta uga bahalkaysan marka islaantuna waaba ka heshay dee oo dooq iyo waxbay ku raacday si kasta wiilkii waa ka dilay ninkii
oo kow kagama siin laakiin waa ka dhigay niman baa ku soo yaacay ninka waa laga qabtay wiilkii mantag jilibkii buu ku dhuftay halkaasuu ku dhuftay wax ka xanuun badanna ma jiro markii xabadna waa ku sii riday ka teg halkaasuu dhaqaa waa laga ceshay tegini dee sheekadii waa laysu yimi nimankan marka iyaga dhexdooda marka la eego waagii hore nimankani waxay ahaan jireen 3 nin wiilkan usha lagu dhuftay 3 nin bay ahaan jireen oo odayaala 3 nin waxay dhex deganayeen niman sodomeeye ah oo isku reera iyaga laftigoodu waa ilmo adeer laakiin markii dhinac laga eego oday la yiraahdo Ali baa wuxuu dhalay Maxamed iyo Cabdi iyo Jaamac reer Jaamac baa 30 ah marka Jaamac isaga dhalay dhinaca kalena wuxuu dhalay Ali Maxamed baa la isaga Ali buu dhalay Jaamacna waa dhalay Jaamac waa sodomeeye iyo Jaamac iyo carruurtiisii iyo wuxuu sii dhalay waa niman waaweyn iyo waxay sii dhaleen Maxamedkii baa wuxuu dhalay 3 wiil kaliya 3 nin baa waaweynaaday 3 nin marka xilligii odaygaas la dilayay u dhimanayay iyagu 3 nin bay ahaayeen wiilashooduna 13 jiro iyo 14 jiro laakiin xoolo aabahood uga dhintayo nin walba 4 xaas buu guursaday markaasuu mid walba 12 wiil dhalay ilaahay waa tarmiyay rag ahaan hadii la isu tirsado 1 2 3 la dhaho kama rag badno oo markii la yiraahdo mag iyo waxba la isku qoraya qoora tiris waxani waa wada milcis yar naag gabadhaani waxay u dhashay 5 wiil tan waxay u dhashay 6 wiil tan waxay u dhashay 7 wiil hal nin baa waxa laga yaabaa 22 inuu dhahay marka laakiin waa yar kuwan laakiin wiilashoodu waa waaweyn oo waa hanaqaad berigii marka 3doodaas waxay ka ahaayeen odayaal ninka raacay oo mid kamid ah raacay oo wiilkan waliba aabihiisa raacay nimankan kaleeto labada kale marka way bahalkaysan jireen sibay u maaragtay sibay isaga hoosaysiin jireen maadaama raggii de markay shir la isugu yimaadeen ragga hadlaaya iyo ragga dagaalamaya ay reerkan wada yihiin saasay noqonaysaa waana ilmo adeer waa Soomaalidu waa aqliga Soomaalida qabiilka lagu sheegay waa aqliga liito oo ku dhisan walaalo way waa hal oday iyo wiilashiisii waxa yeelaya markaan laakiin nimankii yaryarka ahaa reerkana waxa laga helayaa markaan 60 nin oo qori wada qaadan kara hal mar 20 sano bay ciyaalka yaryarka ahaa oo 6 jirada ah 6 jir iyo 3 jirkii iyo de sanad jirkii baa 20 gaaray marka 60 nin nimankii waa ku soo laabmaanba kana wuxuu ogaa iyagoo reerka ka bahalkiisan yihiin 3 oday oo mid waliba nin weyn yahay waa walaalo 3 laakiin mid uu waayeel yahay oday ah baa jooga nimankana ninkii wax garadka u ah wax galka u ah oo ugu ajiibsanaa waa ninka magaalada degan oo reer magaal biskan waa nin weyn oo oday ah markaan malaaq ah macnaha nabadoonka waa dhaafay aw buu maraya ma garanaysa nabadoonka uu dhaafay isinna ma gaarin caaqil buu maraya marka meeshii baa de la soo habar wacdo sina inaysan ku dayn ninka xabadda ku riday waka xeer qorigi waa in la keenaa waa in xaal uu bixiyaa waa hadii kale la deyn maayo rag waxay noqdeen in la isku cirbi taagsado markaan oo isku dherin baa bilaabatay kuna waa yaaban yihiinba tarantana ilaahay baa haya reerkii cirbi taagsado bilowday almuhim reerkii dhexdoodii baa buu ka dhacay waa la ogaaday marka waxa la ogaaday in wiilkan gabadhii iyo sheekadii iyo waxay noqotay sheekada marka in la qarxiyo sababtoo xumaan baa timi buuq baa yimi dagaal baa yimi laakiin ninkii hadda nin u aaraya kama tegin laakiin rag kale oo isaga ilma adeertiisa oo meel kala degan baa jira waxay yiraahdeen sheekadii baa baadiyihii oo dhex qaaday waa is hayaan reeriga waxa isku hayaan ninka waaga la dilay buu sheegay oo ka shifay
wiilkan yari sir buu ka shifay wiilkii yaraa lugtii waaba khatar inay jaban tahay baa la moodaaba islaantiisii baa dadkii ugu soo horbooday markaas waxay u dhashay 7 bay u dhashay halkaasay uga soo booday oo tiri iimaanka alla kaa qaad ilaa dhiigii cabuu ahaa ninkii isagaa dilay sheekadii baa marka qaraxday iyadoo sheekadii qaraxsan tahay laakiin dee tani ay gabar ka tahay waxna aysan samayn karin yaa wiilkii lugtii u roonaatay roggii dee tol weeyahe waa laysu yimi waa la heshiiyey xaal bay bixiyeen marka laakiin waa laisku xumaaday aad baa laisku xumaaday xal buu bixiyey xoolaha ninkii laga qaaday tolkiis baa xoolo ku daray xoolaa la siiyey reerkii si rabshadii iyo wixii loo joojiyo dadkiina waa walaalo cadow kalena waa leeyihiin hadday dhexdooda ka bilaabatana waa masiibo waa inta badan eegaan qabaa'ilku sheekadii markay saa u dhammaatay islaantiina buuqeedii iska dhammaaday oo qanciyey dee waa islaantiisii 2 jeer buu dhunkanaya dhaaya waxaad xog kaga jiraan gabadhii wiilkii bay hoos iska wataan baaba la baxayba xoolihii la siiyey buu soo iibsaday lacag buu soo qaatay magaalo la aadayba waaba soo mehersaday gabadhii bil meelahaasuu soo maqnaa gabadhiina waa mehersan ninkii baa la baxay baa leeyahay xoolaan rabaa buu oday wax imara oo kale ma jiraan aabaheedna isagu ku maqan yahay xoolaan rabaa waxaa la yidhi bal ma hayna carruurtii ha yimaadeen meelhiblaayo laga sheego almuhim waa yimaadeen sida sharcigu yahay gurigii hooyadiis iyo reerahoodii baa dhinacaas oo kale bahal aqaloo weyn gangaan baa loo dhisay markaasaa aroos iyo waxbaa loo diyaariyey odaygiina waxaa la yidhi waa lagula xaalaya wiilkii wuxuu yidhi xaq iguma laha ninkaani beer xaq iguma laha inaan siiyo magarasa yaraad xaq iguma laha aniga xoolaha uu haysto baanu leenahay anagu wiilka yaraa bay dhaheen war naga aamus iimaanka alla kaa qaadi bal aamus gabadhiiba kuma xalaaloobin bal horta gabadha horta guriga ha kugu gasho oo kaadi ninkan yari odaga ciil buu u qabaa gabadhuna aabbahaa buu dilay baa la yidhi ciil bay u qabtaa waa necab tahay ninkan xoolahaagii xoolihiinnii buu haystaana qalbigii kaga jirtaa waxaasoo dhan baa jira iyadoo taas taagan tahay bay reerkii hooska xoolaha dhag la siiyey odaygii baa waxaa la siiyey dhowr halaad gabadhii arooskii waa loo dhameeyey ilaahay qadartiis muddo yar marka joogtay gabadhii uur bay yeelatay wiil bay ku culatay reerkii waa isaga degan yihiin hooyadeeday u dhowdahay wiil markay u dhashay ninkan wuxuu bilaabay xoolahan xaaskaygaa leh ninkaani wato odayaashiina waa joogaan reerkii oo guux ka dhex jira marka oo arrintaasi jirto yaa ilaa soomaalidu waa cajiibe wiil yaa wuxuu u yimi magaaladii buu yimi reerihii buu soo haybsaday reerkii wixii ka joogay baa loo sheegay marka war wuxuu yidhi anigu waxaan ahay ini hebel barraynu ula baxaynaa barre innagaa ula baxaynaa barre lama dho ina barraan ahay war barre hebel hebel oo barre hebel war barre wiil kama tegin haw nimanuu markaa ilma adeer ugu beegan yahay oo ay markaa ilma adeer noqonayaan labaad weeye wuxuu u yimi haddee reerkaasoo dhan fir kama joogo oday buu ahaa odaygii hal wiil buu dhalay halkii wiila waa kii uu dhintay odaguna ilanlayaal buu reerkaa ku ahaa wiilkaasuu ka tegey wiilkiina
hal gabar buu ka tegay oo waa dhintay isagoo weliba nin door oo shaqaysta oo ganacsada noqday buu dhintay nin baa yimi wuxuu leeyahay isagay dhalay alla boodeen marka farxad cirkaa iyo dhulkaasaa lala soo maray baadiyihii iyo tuulooyinkii iyo baa lala soo aaday baabuur baa lagu wadaa waa la soo gelbiyey gelbis ina hebel baan wadnaa waa kan reerihii waa yimaadeen aabbaha hal gabar buu ka tegey baa la yidhi reerkaasayna joogtaa laakiin reerka oo dhan caddaynu ma hayaan inuu ninkaani ninkii dhalay laakiin waa u egyahay u barru u egyahay qofkii u fiirsada oo sinjisooca yaqaan waa bare markuu dhallinyarada ahaa ilaahay qadartiis baadiyihii markay tegayaan roob baa da'ay allabari weyn baa jira marka allabarigii baa dadkii o dhan isugu yimaadeen ninkii nabadoonka ah oo oday ah oo magaalada ka yimi oo reerkii beeshii dhex jooga ninkii dhintay allahu naxariistay oo gabadhan yar dhalay oo barre ahaana ay ahaayeen ceeshow midax iyo saaxiibo oo reerkaba ninkuu heshiis kala yahay saaxiib kala yahay buu ahaa waana ninkii isagu guuray oo magaalada u guuray waana ninkaasna wuxuu ku yidhi gabar magaaladaa joogta oo reer hebel hebela qabiilkaas ah baa wiilay dhashay buu ku yidhi iyadoo uu rilabaan ka yimid noqodkii aan noqdayna wiil bay dhashay ninkaas uu sheegay naagtiisuna warka way maqashoon tahay laakiin meel la kuma sheegto oo wax hawa ah bay iyadu u qaadatay oo ruuxnaba lama soo qaadin iyadu gabadheedaasay iska haysatay khalaas niyadda dee waxay ugu haysatay haddii la doono ninka inta la raadsiiyuusan dhaxalkan iyo xoolahan idinku qabsan iyo haddii la doonaba ha ahaat filin noocaasaba ha ahaat hadday doonto laakiin iyadu aamustay ruuxna uma sheegin allabarigii baa laysugu yimi oo wiilkii baa meeshii marka la keenay odaygii baa salaamay saas u fiiri odaygii waa ku dhegi waa dhunkaday wuxuu yidhi waryaa hooyadaa reer hebel oo hooyadaa reer hebel ma ka sii haawi hooyadaa halkaa ma degta reerkiinu halkaa ma degta haa wuxuu yidhi awowhaa muxuu ahaa hooyadaa aabbaheed muxuu ahaa markaasuu yidhi shiikh weyn oo laga dambeeyo deegaanka odayga marka lagu fadhiyo ma maqlaysaan buu yidhi marka meesha waa wada fadhiyaan tolka ninkan reerkiisii qolyaha meesha ku allabaryayo way ku jiraan oo dee markii la yidhaahdo reer geediyo waa wada reer geedi reer geedigii baa reer gallad iyo reer guhaad kala may maqlaysaan ilaahay hortii anaa la weydiinayaa ninkaas aabbihiis afkiisu iiga sheeg hooyadiisu uur leh inuu ka yimi mar labaadkii uu noqdayna inuu wiil u dhashay xataa magaciisu ii sheeg waana xusuusan magaca waxaana ka sheegay waxaana u sheegay hebel hebel oo dhintay iyo hebel iyo hebel iyo nimankaa ilma adeertiis waa u sheegay abtiyaashiisna waa u sheegay waraalle ahaada mikrofoonka markii anoo barnaamijka wada baan salaad aaday halkaanuuba ku jirayba sida kan oo kale badii kale waa kaa dhexda ka taagan dabkan sii geliyey waa ka tegey xataa codku waa kala duwan yahay waa dareemi kartaan waa kala duwan yahay codku sababtoo ah hadda waa kan xagga ii suran markii sanduuqa isagoo ku dhex jiro shidnaa oo codka qabanayay hadduusan bedensanayn waa fiicnaa
المهم odayaashii iyo wixii iyo waa laysu yimi rag waaweyn baa meesha joogay anigu berigii waa iska dhayalsaday iyo filin noocaas ninkii seedigiisa ahaa baa la baray ninkii aabbaha gabadhaas ka tegey waa kan oo gabadhii walaashiisa ahayd meesha ma joogto laakiin markaas waxa meesha jooga allabariga xoogaa waa kala durugsan yahay reerkiisu waa durugsan yahay isaga ninkeedii baa jooga ninkii baa la baray markii la baray baa ninkan waa seediga waka reerihiisii ula socdaa marka inaan walaashay soo arko baa jirta wiil idinku iska taga qolyihii la socday anigu caawa waxaan la joogay waa reer magaal caawa waxaan la joogay seedigii baan raacay war hadda meeshaan waa dhowdahay war meesha saacad iyo bar baa loo sii soconayaa iyo saacad wax ku dhow waxaa la yidhi iska joogo berri gaariga tegaya baanu kugu daraynaa meesha may anoo walaashay soo baran wuxuu yidhi baadiye ma joogaya caawa ma seexanaya waa inaan la soo seexdaa xagga xaafadda waayahay baa la yidhi allabarigii waa la gebagabeeyey meesha ummaddii oo dhanna warkii baa waxa loo qaaday maqshir iyo maqrib midkii belada ahaa oo aabbihii ku tegey ma joogo allabariga mana iman xataa allabarigaas xoolaad la damcay in laga qaado waa diiday shilin dadku neef bay isku daraan waa ka allabari kama qayb qaadan xataa shaqana kuma lahayn waana diiday weliba si cad buu u diiday islaantii baa dirqiya alla ceesaan lagaga qaado oo bixisay laakiin wuu diidanaa isagu ceesaantaana anaale bay tiri oo almuhim iyadaa baxsatay marka wiilkii bay isa soo raaceen jidka markay soo socdeen buu yidhi niyahow waxaadan ogeyn baan kuu sheegayaa ilaa ninkaani waagi waa tii lugta la kala wareejiyey jawigii maaha ninkan isaga laftigiisa qori gatay odaygaa xunka ah waa neceb yahay laysmadso waa isneceb yihiin labaduba gabadhiina waa tan waana xaamilo wiila waa u dhashay waa neceb yahay jidka markay soo socdeen labadooda isla socda gurigiisu u raacay wuxuu yidhi waxbaan kuu sheegayaa niyo aabbaha waa la dilay reerkii aabbihii ka dhashay oo aabbihii ilma adeertiis ruma buu soo arkay awowayaal buu soo arkay no wax warkaa u sheegay ma jiro wiilka waa yaabay yaa aabbahay dilay aabbaha waa la dilay wiilkii argagax baa ku dhacay aabbaha baa la dilay gabadha aan qabo walaashaasoo ma haa ninka hooyadeed qabaa dilay waryaa war maxaad sheegtay ninkaasaa dilay xoolaha xerada ugu jira geel iyo ari sumadda ku taalla waa sumaddii aabbaha kulligood xoolaha guriga ku jirana aabbaha baa lahaa ninkaani gabadhan oo aabbaha qabo oo xoolo badan haysto oo geel iyo ari iyo lo iyo kulliba reer buuxa ah oo aabbaha xanuunsaday sheekadii buu uga sheekeeyey aabbaha xanuun buu qabay buu yidhi waa la qaaday iyaduna xaamila ahdo gabadhan urkeeda ilahay waa la qaaday qaaditaankii uu ninkaasi qaaday baa ugu wardamaysay magaalo iyo dhakhtar buu u qaaday magaaladii ma geyn dhakhtaru ma geyn meelu ku aasay lama yaqaan soo noqodku soo noqdayna ninkii waa dhintay buu yidhi waa laga shakiyey hadallo isdhaafsan buu ku hadlay ragga raacay aabbahay baa ka mid ahaa aabbahay baa caddaynaya meeshii inuu yidhi meeshii aan ku aasayba waa garan waayey rag baa ila aasay muddo yar kadibna gabadha dumaasheedii buu soo istaagay iyadiina waa ogolaatay waaba aroostayba meeshii buu kula aqalgalay xoolihiina sumaddii aabbahaaba xataa dhaxal markii la damcay in nimankii ilaa ninkan
adeeradii iyo meesha ma joogaan reer abtigiisu awalba dhex joogay laakiin dhinac marka laga eego kuwaan ilma adeerta ah koowaad bay noqonayaan ilma adeer labaad bay noqonayaan kuwaan laakiin kuwan laftigoodu kama dheera saddexaad bay noqonayaan oo dad saa usii kala fogmaa laakiin habeen bay ka xigaan kuwaasaa habeen xiga marka reerahan iyo reerahan qalad baa ka dhex dhacayo waaba kala guureenba markii hore kala guureen laakiin ninka adiga awowaha oo reerkan dhaleen baa ku haray wiilkii ku dhex dhalayna waa kaa almuhim waa laga aamusay sheekadii buu u sharxay arrintaasaana dhacday xoolihii uu lahaana ninkan xataa kuwaa ilma adeertiis labaadii inuu xoolo kaxkaxayn jiray way ogaayeen markay yimaadeenna dadkii oo dhan waxaa la isku raacay oo iyagoo leh xooluhu ka tegey ninkaas waxaa la tusay rati iyo wax noocaas oo le ninkan nin reer abtigii ku dhex nool buu ahaa xooluhii uu wadwadi jiray oo gedgedi jirayna xoolo reer abtigood bay ahaayeen abtigiis bay ahaayeen ee xoolo uu isagu lahaa oo gedi jiray ma jirin nimanka halkaasay u dhaqaaqeen kadib markay dhaqaaqeenna waa la isku qabsaday dagaal baa ka dhacay xabad baa ka dhacday xoog buu ku qaatay xoolihii ninkaasna wuxuu qaatay intaasoo neef intaas wixiiba u sharxay wiilkii sheekadii siduu ku maqlay oo dhabta ahayd iyo sidii wax loo kala qaatay iyo wixii buu u sharxay wiilkan waa yaabay marka madaxaa weynaaday walaashiina weli ma arag eedada la sheegayo weli ma arag waa laga sii hormaray dadkii odaygii waa loo tegey waxaa la yidhi war wiil baa yimi ninkii dhalay maba dhici kartuu yidhi waa been maba dhalinba inkiraad isagu halkaas ula soo istaagay waa inkiray ma dhalin war nabadoon hebel caaqil hebel baa uu isagu u sheegay oo xataa gartay oo yidhi waryaa hooyadaa ina ayaa la dhahay oo iyay ahayd oo reerkee ahayd awhaa muxuu ahaa intuu itixaamay markaasuu sheegay alla ila waa hadalku igu yidhi intaas markhaanti ilaahay baan ka ahay inuu nin shiikha gabar tilmaantii iyo wixii was keenaan oo ninku waa wiilku dee markay aragtidna waaba wiilkii waa garanaysa gabadhaanna waa isu ogyihiinba iyo wiilku isagoo inkirsan oo inkiray oo islaantii ka dhaadhiciyey waa been waxaana warka loogu sheegay waxay israaceen ninkii gabadha qabay oo isnabcaayeen waa sheeko uu ninkaasi soo abaabushay buu yidhi wax ka jiraaba ma jiraanba ninkaasina maba dhalinba wixii laga sheegay ilaa meeshii goobtiina waa ka maqnaa ninkan laakiin dadkii u tegey oo u sheegay irbaadii waa dad aad iyo aad warka u kala gudbiya ma garanaysaa ninku markii kuga hor yimaado anabdoone waa iska fiican xaaladdu boqol bay ahayd reerkaasu yaalay wax dhibaato ah ma qabin jilaal roob intaasaanu haysanay gacaniga gaari waabu ahaa roobku wakaa wax dhibaato geeri islaameeda ma maqal nin halkaas hebel la yidhahdo bukay waa jiray xoolo halkan lumay oo nin hebel la yidhaahdaa uu hayey oo sumada nooca iyo noocaa la waajib hal mar bay warkii oo dhan soo koobaan wixii war ahaaba ninku u warramaya ma yaqaan marka iska hor yimaadaan hadday isaqaanaan hadday isaqoonba halkaa iyo halkaasaan ka imi uga bilaabaya cabbaar markuu warka ka guro ka dhammeeya baa ka kalena warka u bilaabaya markaasuu sheegaysa waa sidii telefoon caadi ade memory wixii ku jiray buu ku shubay kanna intii uu sheegaya ninkanna wuxuu daba marayaa meesha uu ku socdo xog buuxda isagoo ka haya kanna halkan uu ku socdo xog buuxa beerna isuma sheegi jirin dadku dad xalaala oo caadiya bay ahaayeen waana dhaqan jiray oo sax ahaa marka qolyahay warka qaaday dee isla markiiba xaafadii iyo dadkii aan allabariga joogin bay habeenkiiba ku cashriyeen ninkan wuxuu soo istaagay xog kama jiro waa been ilaa dad baa maalinimadiiba ka soo tegay meesha oo isla maalinimadiiba reeraha u tegey wax ka jiraan ma jiraan islaantii waxay tiri bal aynu aragno horta wiilka aynu aragno inaga hadda ilaa waxba inankama xirne wiilka aynu aragno gabadhaydu hadday walaal heshay wiila waaba ilaahay mahadiis anna dee waa wiilkaygii oo dhib la'aanaan dhalay iyadu dhib uma aragto may ninkaasaa soo sameeyey buu yidhi waa gacan ku rimis wuxuuna u socdaa xoolahan
iyo hantideenu u socda islaantii uu xoogaa shaki geliyey laakiin barnaamijkaas uu isagu aaminsan yahay bay habeenkii xaafadii walaashiisuu tegey iyada laftigeeda waa loo sii warramayo walaalkaabaa yimi baa la yidhi oo warbixintu waa ka soo horreysay tii oo faraxsan ninkan ma garanaysaa waa walaalka meeshii bay ku dhegtay habeenkii neef baa meeshii loogu loogay loo qalay waa la soo dhoweeyey marti sharaf badan oo qurux badan oo cajiib ah buu ahaa subaxnimadii markii la soo kacay dadku warka waa isgaargaarsiiyeen waxaa la yidhi waa wiilka hadda aabbihiis baynu waalid u ahayn qoladanna waxay leedahay aabbihiisaan waalid u ahayn qoladanna waxay taagan tahay aabbihiisna waalid waa u ahayn xididna hadda waa nalaya dee waana ninkii maasha allah nin la helay wiilkan yar wuxuu yahay lagama warqabo gabadhan waa ka wen yahay ilma ma dhalay ma guursaday wax laga warqabaa ma jiro waa ninkaa magaalada ka yimi khalaas wax laga ogyahay ma jiro hooyadiis reer hebelkaa uu sheegaya mooyaane wax kale oo laga ogyahay reeraha iyo afaarooda iyo magaaladooda midna ma jiro waxa dhacday marka subaxnimadii baa la yidhi halkaasay reerkii degan yihiin gabadhan hooyadeed waka reerkii in lasoo barto wey ninkii wuxuu yidhi anu ku raaci mayo gabadhiina dee xoolaha kama tegi karto mid baa lagu daray oo la yidhi bal waa isu dhow yihiin marka oo gabadhaani hooyadeed inta badan kama fogaato oo wiilka iyo waa xoogaa ma kala fogaa markii baadiya la eego ma kala foga marka lagu leeyahay 5 kilomitir 6 kilomitir baa laga yaabaa inay isu jiraan garkaa gudubsan inuu degan yahay midna garkaa gudubsan degan yahay ma kala foga marka dabkay kala qaataan sheekadu sida reer baadiya macnaha waxba uma arkaan hal saac luga iyo 2 saac oo lugaynayo waxba iyaga agtooda waxay ka tahay markaa orado cusbada iga soo qaaday reer wax fudud xaafad deriska ah wey waa deriska dabaqaanan oo ka degay dabaqa labaad sonkor ka soo qaatay kama duwana bas ka saas rimay marka wiil baa lagu daray leeyahay xaafadii inuu soo barto laakiin wiilku waa dhaansan yahay halkaas jooga habeennimadii markuu u yimina gabadh iyo walaashiisa ayna waa u sheegtay waxay tiri niyo ninkaas awal buu aabahay dilay ha aadi ninka inaan arkaa jirto yiri horta ninka aabahay dilay la sheegay inaan arkaa jirto waa inaan soo arko ninkii bay ku dareen wiilkii bay ku dareen waxay yiraahdeen hana ka imaan hana ka harin wax kasta oo cunno ah hadday u soo dhigaanna waa inaa isha ku haysaa aysan sumayn reerkaasi ninka ah isagiina waa lala hadlay wuxuu yidhi maya waa salaamaya waana kasoo noqonaya keliya inaan ninkaa barto wejigiisa ninkaan cudad baaba ku jirtaba ninka aabihii dilay inuu dilaaba baaba qalbiga dhag waaba ku tallaalan tahayba markiiba in anugu codlada ku koro oo meel kale ku koro ninka sababay weeye buu taagan yahay inuu ninkaa arko waa u asal ah xoolahoodiina dhacay aabihiina dilay xoolihiisiina dhacay naagtiisiina guursaday filin noocaasa macnaha inuu xoolihii ka qaaday inuu inta dilay naagtiisiina ka guursaday ilmihiina ka qaaday xoolihiina ka qaaday oo dhacay dhac iyo dil iyo waxba ulama harin baa ninkaa niyadda kaga jirta wiilku cuqdad wuxuu qabaa bini aadan qabaaba uusan jirin kaasee digaa baana kusoo akhriyay meeshii bay gurigii bay yimaadeen subaxnimadii xoolihii xoolo dareeriska xilliga xoolaha kala foofinayay islaantii u yimi waa salaamay ina hebel baan hayo islaantii waa yaab ina hebel allah u naxariista intaas sano sii mootan yahay intaasoo sano xaga ku maqlay dhowr iyo 20 sano
wiilkii xoogaa shaki bay iyada laftigeedu sii gelisay. wuxuu yidhi aabbahay inuu ilmo kala dhalay kuuma sheegin miya? markaase waxay tiri been baan ka moodi jiray. waa igu yidhi laakiin adigu haddaa in hebel tahay maxaa muddada intaa lagu maqlay? aabbaha geeridiisii meeshuu ku dhintay iyo walaasha iyo ilma hadduu ka tegey ehelkiisi iyo tolkiisi iyo qaraabadii uu lahaa oo reer abtigii iyo dadku dhex jiray maxaa u soo fiirin wey? maya wuxuu yidhi dan iyo duruuf baa jirta, aniguna ilmo yar baan ahaa. maanta markaan koray oo hana qaadayna waa anigaa reerkaygii soo doontay oo u imi. intii horena de nin yar baan iska ahaa. ninkii odaga halkaasuu aaminsan yahay, saas u fiirinaya, afku buuraya. ninkan wuxuu yidhi waa walaashay adeerkeed soo maha, maxaad la caraysan tahay? maya ma caraysni buu yidhi, ma caraysni. de waa ku salaamay oo markii hore salaantiina si fiican igamaad ridin buu yidhi. warkaygu inuu kusoo gaarayna waa u malaynayaa. warka waa maqlaaya buu yidhi, laakiin anigu hadda nin intaas maqnaa suu run ku yahay baananba garanayn. dhag wiilkii qalbigiisa saasa u taabtay inuu ninkaasi aabbihii dilay baa u sawirantay. marka salaantu wuxuu yidhi eedo waxaan rabaa inaan idin barto khalaas, haddana inaan magaaladii ku noqdo baan rajaynaya. ways arkeen marka labada nin. ninkaanna waxaba laga tusay melagii dili lahaa inuu yahay ninkaan. kala hormara camal baaba hayse odayga, waana odayguna waa mufsid weyn, macnaha waa balaayo aan dhib badan. wiilkan yarina cidina ma taqaan, laakiin ishuu geliyey wuu arkay ninkan waxaa laga sheegaya nin ay ka dhab tahay inay tahay. halkaa waxaa usoo martay, usoo saarantay calaacashaasoo kale aabbihii ninkaas inuu dilay oo cad halhaleel buu uga baxay. markay ka tageen oo cabaar guriga kasii socdaan buu ninkii malaha gurigu galay, qorigiisii aakaha ahaa meeshaan ugu tiirsan buu soo qaatay. islaantu wuxuu yidhi ninkan waa laysoo tilmaamay, waa inta ka socdaan wax yar 200 tallaabo camal bay guriga kasoo dhaqaaqeen. islaantu ku yidhi ninkan waa laysoo tilmaamay inuu idilo, waa i baranayay, intuusa idilin waa inaan dilaa. war allaha allameye, war allah waaba ku dhegtay. gurigii buu kala soo baxay qorigii. kii yarka ahaa isagii maahaya, kan yar baa gadaal soo fiiriyey, mise islaantii odaygii baa dee ma garanaysa waxay u jiraanna waa 200 tallaabo. sii daayo qorigii buu koogaraystay. koogaraysigii qorigana waa maqleen, dabayshu xaggeeda usoo dhacaysay, waana arkeen inuu xaggooda usoo ordayna waa arkeen, waa carareen. marka xabaduu ka daba riday, waa ula fariistay, waa shiish. masaafadii wax ka toogan lahaana waa dhaaftay. ilaahayna uma qorin inay wax ku dhacaan, laakiin orod buu wuxuu ku galay reerihii labadoodu iyagoo ordaya. wiilkii wuxuu yidhi waa tegaya, waa tegaya, waa tegaya. kii baa yidhi war ninkii baa soo xabadeeyey, waana dili lahaa labadeedaba. reerihii xabadii iyo wixii wuxuu yidhi may joog, ma joogayuu yidhi niyo baadiya weeye, ma yaqaan reerkayagii iigay. wiilkii halhaleel buu caagadiisii qarqarka u saarsaday, waa kiciyey. marka toos sheekadu waa caddahay.
xabadda marka dad baa jira reer baadiye oo deris ah oo isla reeraha ah ninkan inuu waa la ogaaday waa loo yimi xabadaha inuu riday waa la arkay dad baa yar wariyo xabadeeyey islaanta waxay tiri gabadhayda wiilkii la dhashay buu dili lahaa oo rabay inuu dilo islaantii iyo ninkii waa qir yaqir dadku halkaasay ku arkeen kani intii xaafadii iyo buuqaasi ka jiray dee waa dad masaafo kala degane wiilkii la tag wiilkii reerahoodii markuu geeyey uu dib uga soo haray